magacaygu waa Liibaan Maxamed Baafo waxaan ka mid ahay bulshada ku nool gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garowe waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo dhamaan inta magacayga iyo muuqayga garanaysa waxaan halkan ka soo qayb galnay shirweyne ururka cadaalad iyo sinaan barnaamijkan oo ah barnaamij in muddo la wada sugayay waan aad uga mahad celinayno maamulka Puntland hadda jooga oo u suurtageliyay in asxaabtan la dhaqaajiyo oo la hirgeliyo ayadoo la tixgelinayo rabitaanka dadweynaha marka waxaan dareemayaa in sidii dadku rabeen loo dhaqaaqay oo tubtii hore oo qabaliga ahayd oo maaragtay ahayd mar hore in laga tago haddee dadaalo badan waa sameeyeen maamuladii hore oo aan ku mahadsan yihiin mid walba in wax unbuu soo qabtay laakiin hadda maamulkan cusub oo hogaaminaya Dr. Saciid Cabdullaahi Deni ay ku guuleysteen in ursiyaasiyada la furo la tartamo kadibna hadda ay socdaan shirarkoodii shirweynayaashoodii kadibna hadda loo gudbi doono asxaab aad marka dadweynaha iyo bulshooyintu u soo dhaweynaysaa systemkan cusub oo ah one man one vote marka saxaafadana waa u mahad celinayaa iyo telefishinka gaarka ee STN oo ka shaqeysa kulli arrimaha bulshada inay dadka gaarsiiyaan ra'yiga inay xogaha aruuriyaan oo dadka fayirkooda aruuriyaan waxaan aaminsanahay STN inay hayso shaqo ballaaran bulshooyinta Puntland iyo Soomaaliyaba oo meel walba lagala socdo dadaalka halka ka sii wadaan idin leeyahay waana ku mahadsantihiin waan idinku habalyeynaya doorka fiican ummadda u haysaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh